dhammaan militariga dhammaantii sidaas ayay qabaan iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed biliis iyo militari walow nabad sugid xalay musiibo dalka ku soo hoyatay waa godod ciidan iyo damac afgambi oo lala damacsan yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud warwarkan waa war cusub waa war ka farxin doona dhammaan jamaahiirta kooxda nabad iyo nolol oo xabiibul malaayiinka si weyn u taageersan safarkii qarsoodida lahaa ee uu farmaajo ku tagay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya oo aan war farxad gelin doonin kooxda damul jadiid ee maafiyada ah ee waddanka la wareegtay ka soo yeeray maxaad kala socotaa in Soomaaliya Abiy Ahmed iyo farmaajoba ay qorsheeyeen in kooxdan anyaxa ah ee maafiyada ah ee damul jadiid ee xasan sheekh maxamuud oo horjoogaha u yahay in waddanka laga qabto oo waddanka si afgambi ah lagu wareego xaalad la yaab leh ayaa Addis Ababa laga soo warinayaa ciidankii ugu badnaa abid ee Itoobiyaan ah oo magaalada Muqdisho lagu soo daadgureynayo goordhow maadaama la filayo in galabta uu soo dego xabiibul malaayiin maxamed cabdullaahi farmaajo oo shalay sida aan warbixinta idinkula wadaagnaba u socdaalay dalkaas iyo Itoobiya warar la yaab leh maxay ahayd hadalladii la yaabka lahaa ee taageerayaasha kooxda nabad iyo nolol uu ka horjeediyay maxamed cabdullaahi farmaajo maxaad kala socotaa in kooxdan maafiyada ah ee damul jadiid iyo daljir dalka laga qabanayo Abiy Ahmedna uu wacd ku maray in xasan sheekh maxamuud sidii waddanka looga saari lahaa uu kala shaqayn doono maxamed cabdullaahi farmaajo oo halkaas u tagay inuu ka nabadooniyo arinta Soomaaliya iyo Itoobiya oo si xumaanaya cilaaqaadkii ka dhaxeeyay maadaama koox maafiya ah ee waddanka la wareegeen muuqaalo sir ah ayaa laga helay safarkii qarsoodida ahaa ee farmaajo uu ku tagay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalkaasi Itoobiya Soomaaliya waxa uu curan doonto waayo markaasi barwaaqo sooran ah farxad iyo reyn ayaa la geli doonaa maadaama Abiy Ahmed iyo farmaajo ay qorsheeyeen in baarlamaanka ay ku kiciyaan kooxda haatan maafiyada ah ee waddanka haysata ee damul jadiid xasan sheekh maxamuudna sidaasi talada dalka loogala wareego oo maxamed cabdullaahi farmaajo xabiibul malaayiin ay mar kale uu talada dalka ku soo noqdo haddii aad jeceshahay in farmaajo aad aragto isaga oo aan 40 sano xasan sheekh maxamuud oo dhammaysan farmaajo oo madaxweyne ah fadlan muuqaalkan like garay oo sii share garay si saaxiibo badan uu gaaro YouTube-kan Xaqiiq TV waxaan ka codsanaynaa dhammaan taageerayaasha wadaniyiinta ah in YouTube-kan ay subscribe saaraan iyaga oo muuqaalkan like la dhacaya qaybta hoose ee commentigana aragtidiina waad inoogu reebi kartaan iyo sida aad u aragtaan in farmaajo uu waddankan mar kale hogaamiyo taageerayaasha wadaniyiinta ah ee halkan ku jira dhammaantiin muuqaalkan share gareeya rabbi subxaanahu wa ta'ala umuuraha aad leedihiin oo ah in farmaajo uu dalka dib ugu soo noqdo ilaahay ha idin sahlo ku mahadsanidin daawadayaal aynu ku bilownay madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ahna kii ugu daacadsanaa ee Soomaaliya soo mara abid burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya kadib maxamed cabdullaahi farmaajo oo dadka qaar ay u yaqaanaan xabiibul malaayiin ayaa shalay safar qarsoodi ah uga ambabaxay magaalada Muqdisho gaar ahaan garoonka Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde madaxweynaha oo safarkiisa ay waxyaabo badan dul hoganayeen ayaa waxa uu ka degay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa la arkayay isaga oo gidii diyaaradaha ee magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya ku soo dhaweynaya madaxweynihii hore ee Soomaaliya dad badanna ilaa iyo haatanba ay aaminsan yihiin in uu dalka hogaamiyo maxamed cabdullaahi farmaajo safarka Itoobiya uu ku tagay farmaajo ayaa si weyn ilaa iyo xalay isha loogu hayay balse waxa haatan ka soo yeeraya war aan farxad gelin doonin kooxda maafiyada ah ee waddanka la wareegtay ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ee xaaluf iyo xaraashka ah maadaama dalka ay markaasi god weyn ku sii wadaan farmaajo oo markii hore u tagay Itoobiya iyo Soomaaliya cilaaqaadkii ka dhaxeeyay oo si xumaaday inuu soo hagaajiyo tan iyo markii uu xilka la wareegay xasan sheekh maxamuud ayaa Abiy Ahmed waxa uu keenay qorshe cad oo ka yaabin doona qorshahaasina waxa uu yahay in Abiy Ahmed uu baxsho lacag gaaraysa ilaa iyo 80 milyan oo dollarka Mareykanka ah baarlamaanka Soomaaliyana lagu kiciyo kooxdan damul jadiid ee dalka haatan la wareegtay maadaama farmaajo xildhibaanadii koonfur galbeed uu gacanta ku hayo isla markaana xildhibaanada kale loo sheego in ninkan waddanka laga qabto sidaasna afgambi xilka looga qaado madaxweynaha haatan talada dalka haya ee xasan sheekh maxamuud Abiy Ahmed ayaa qorshahaasi soo jeediyay farmaajona waa uu markaasi qaatay qorshahaasi dhawaan waxa garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde ku la wareegay aan iraahde koox Itoobiyaan ah ama ciidan Itoobiyaan ah oo markaasi raba in madaxweynaha ay dalka markaasi halkaasi ay ku soo dhaweeyaan warar ah oo ka soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan waryaan idinku badine daawo hadalkii la yaabka lahaa ee ay jeediyeen qaar kamid ah taageerayaasha kooxda nabad iyo nolol ee talada dalka goordhow la wareegi karta iyaga oo isticmaalaya awood ciidan si dalka looga badbaadiyo Kenyaati iyo sidoo kale dalalka cadawga ku ah Soomaaliya
haddaba daawada waxaan kula wadaagayaa qaar ka mid a ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo fariin u soo diray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyaga oo sheegay inaysan u aqoonsanin madaxweyne sidoo kale qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ee wadaniyadu biyo dhigtay oo ka codsaday ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed in awood u isticmaalaan Xasan Sheekh Maxamuud si dalka ugu soo laabto madaxweyne Farmaajo oo xilligan aad u dalku ugu baahan yahay waa sida iyagu ay sheegeen balse inta aan bilaabin muuqaalka daawada haddii ay tahay marka koobaad aad soo boqoto channelkeena Xalana Media subscribe oo faragan beelka si aad u noqoto daawadaha koobaad ee barnaamijyadeena mahadsanid like saar muuqaalka oo share gareey lana wadaag asxaabtaada si ay u ogaadaan gudaha dalka waxa ka soconaya iyo damaca shacabka taageersan madaxweyne Farmaajo ay uga dalbanayaan ciidamada qaranka inay awood u isticmaalaan Xasan Sheekh Maxamuud oo dalka laga ceeriyo sidoo kalena madaxweyne Farmaajo xukunka uu sii joogo waxaan kula wadaagayaa qaar ka mid ah ciidamada Soomaaliya oo codsi u diray Xasan Sheekh Maxamuud una sheegay inuusan marnaba xukumi doonin madaxweyne ay soo aqoonsaneen iyo sidoo kale shacabka qaar oo ka codsaday ciidamada qaranka in dalka la badbaadiyo Xasan Sheekh Maxamuudna laga talaabsado xabsigan loo taxaabo isaga iyo asxaabtiisa haddaba daawada aan idin kala dhaxbaxo adiga iyo muuqaalada ku saabsan sheeg idin la wadaagay geedka ciidamada iyo damaca afgambiga iyo sidoo kale codsiga shacabka ay u dirayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ku sugan waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay ka hadlayaan hadafkooda inaan yeelayn imaaraad inaan yeelayn nin caloosh u shaqaysta oo shisheeye u shaqaynayo ciidan Soomaaliyeed oo noqonayno saacadan laga bilaabo nin walba shaqadiisa ha qabsado madaxweyne Abdullahi Farmaajo oo qoonsanay dadkan isay oo doontan halka dhinaca u socodsiiyay waa Farmaajo wadaniyad male ninkii kii u sujuuday aniga askari oo noqonayo saacadan laga bilaabo ninka hadda ka ahaan waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo tanaad ku taabsan sagaalaad oo soo gudbay gaarka waxaa hawo hadlahaas ka kiciyay nimanka Kenya oo awal ragii gacanta u geliyay kamidii nimanka hadda ku soo wada leeyahay mar aan aqoonsanin madaxweynaha dalka waxaan u aqoonaa Maxamed Abdullahi Farmaajo sagaalaad ka dhisay sagaalaad madaxweynaha anaga waa Farmaajo iyo sidoo kale shacabka qaar oo ka codsaday ciidamada qaranka in dalka la badbaadiyo Xasan Sheekh Maxamuudna laga talaabsado xabsigan loo taxaabo isaga iyo asxaabtiisa haddaba daawada aan idin kala dhaxbaxo adiga iyo muuqaalada ku saabsan sheeg idin la wadaagay geedka ciidamada iyo damaca afgambiga iyo sidoo kale codsiga shacabka ay u dirayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ku sugan waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay ka hadlayaan hadafkooda inaan yeelayn imaaraad inaan yeelayn nin caloosh u shaqaysta oo shisheeye u shaqaynayo ciidan Soomaaliyeed oo noqonayno saacadan laga bilaabo nin walba shaqadiisa ha qabsado madaxweyne Abdullahi Farmaajo oo qoonsanay dadkan isay oo doontan halka dhinaca u socodsiiyay waa Farmaajo wadaniyad male ninkii kii u sujuuday aniga askari oo noqonayo saacadan laga bilaabo ninka hadda ka ahaan waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo tanaad ku taabsan sagaalaad oo soo gudbay gaarka waxaa hawo hadlahaas ka kiciyay nimanka Kenya oo awal ragii gacanta u geliyay kamidii nimanka hadda ku soo wada leeyahay mar aan aqoonsanin madaxweynaha dalka waxaan u aqoonaa Maxamed Abdullahi Farmaajo sagaalaad ka dhisay sagaalaad madaxweynaha anaga waa Farmaajo